anigoo ah maxamed carra alculusow ahna abtiga ama soo koriyaha ama barbaariyaha ilaaha barbaariyaha xamdi maxamed faarax haruun marxuumadii sida arxan darrada looga soo tuuro dabaqa shanaad waxaan leenahay war waa wareey mar kale waxaa aad iyo aad u xanuun badan waxaa u xanuun badan oo la yaab u leh cadaaladda ka jirta waddanka waxaa kaloo la yaab leh sifaha dadka dembi baarista iyo waxyaabaha ku howlan oo dawladdu ay u xil saartay waxaa kaloo la yaab leh aragti indhaha dawladdu ay wax ku aragto oo aad mooddo inaan la arkin ama ayan wax arkinba aad mooddo sifooyinkaan aragnay markii gabadheenni arxandarrada noocaasu ay ku dhacday oo sida la arkay oo social mediaha taalla ay ku dhacday oo la yidhi shaqo wanaagsan iyo hotel iyo waxbaan kuu haynaa meelaan ka shaqaysatidaan kuu haynaa lagu siray oo dhibkaas uu ku dhacay oo laga soo tuuray dabaqa shanaad oo ay taagan tahay oo guriga meesha ku yaallo oo ay tageen hay-adaha amnigu ay tageen ama hay-adaha dembi baarista ku shaqadalo ay tageen waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro aad iyo aad u weyna oo aan aragnay oon la yaabnay inay dabaqa laga soo tuuray oo dariishada shanaad oo dhiiggii ku yaallo oo midda labaad midda saddexaad soomariinka ay soo martay uu ku yaallo in aysan qornayn oo aanay diiwaan galsanayn oo aan diiwaanka lagu darin oo aanay ku jirin c a d annagoo dad madaxa ma tegi karnee la soconno markaan tagnay aysan ku jirin oobiga aanay ku jirin oo aan xisaabta lagu darin lana soo arkay ciidamada dembi baarista hay-adda dembi baaristu way tagtay waa soo baartay waa aragtay meesha ay ku soo dhacday aragtay guriga gaaban ee ay ku soo dhacday ee dumay ee meeshii ka dumayay aragtay waxaan la rabayna luuqa guriga gaabane ay ku dhacday iyo derbiga oo guriga laga soo riday inta udhexaysa inay ku dhacdaa la rabay nasiib wanaaq kuma ay dhicin waxay ku soo dhacday waddaday gurigay ku dhacday waddaday u soo dhacday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa la arkay marka sidaas waxaa dhacday in dadku ay arkaan oo ummadda ilaahay ay arkaan ma ay qorin diiwaanka may gelin waxyaabaha oo caddaymaha ay meesha ku soo arkeen meeshii ma ay geyn waxaan la yaabnay ka mid a c a d markii gabadha meydka laga qaaday oo la geeyey isbitaalka madiino oo baaris lagu sameeyey baaristaasoo dheecaanadii la qaadaayey berri noo kaalaya si aad caddayntiinna u qaadatiin markiina la yidhi eheladiinni aad tihiin ma noo suuro gelin in nala siiyo caddaymihii markaan tagnay 2 saac markaan tagnay oo aan kusii sugnay dhakhtarka xafiiskiisa kusii sugnay 4 qofood oo qofka ugu dhalinta yar uu aniga yahay markaan tagnay 4 qofood markay meesha tageen 4tii waxaa la yidhi wuxuu yidhi 2 qofood saas 2 farood inta yidhi ayuu yidhi 2 ayaa kufsatay cidda dhehaysa waa baaraha isbitaalka madiino 4 nin annagoo ku taagan ayadoo lagu taagan yahay 4 qofood oo qofka ugu dhalinta yarru anigaan hadda hadlaya uu yahay ayuu yidhi 2 ayaa kufsatay intaasaan ka helnay horteennuu ka yidhi ilaahay baa ogaa annaguna waan ogeyn saacado yar kadibna wuxuu yidhi iisoo dira si ay dhiha ii timaado hayga qaado waqyar kabacdi markaan la soo naqana annagoo sarkaalkii arrintaas inuu qaado si ay dhiigeeyo loogu talagalay markaan tagnay asigana ay dad kale u yimideen annagu waxay u sheegeen ima garanayno waxaa dhacday inuu yidhi waxba kufsi ma jiriyo waa waxaan kaloon la yaabnay c a d markaad tegtid adigoo dhibana ah oo kale dhibaata ku gaartay waa hay-addii dembi baarista ee soomaaliya markaad tegtid waxaa lagugu celinaa meesha bannaanka haddaad bannaanka ka soo geshidood gudaha timaadid waxaa lagugu celinaa qaybta kale ee ganjeelka ma geli kartid xafiisyada ay joogaan madaxa dembi baarista
amba madaxa CID ama uu joogo dadka kale ee howlahaas ku shaqada leh ay joogaan ma tegi kartid waa lagu celinaa dhibaatada jirta yaa waxa yiri waa dhakhtarkii dhacaanka ka qaaday oo baarista shaqada ku lahay oo qaabkaas markii hore maqribtii hore dhacaanka ka qaaday oo hawsha waday isagaasaan yiri anaga laba qofood ma noogama imaan hal dhakhtar aan nooga yimiday halkii dhakhtar oo nooga yimidaana sida nagu yiri anaga dhibaatada marka nagu qaabishay meesha waxa kamid ah oo aan la yaabnay shalay markii nala yiri baxa iska taga hawshan waa waxay u taalaa maarta wala baarisay ku jirtaa haddana waxaan ka war helnay in maxkamadda la tagay oo dadka xirxirnay la leeyahay qaar hal la deeyo oo dad xeer ilaaliya dad dawladda ku jira ay leeyihiin dadkan hal sii daayo damaanad hanugula siiyo waa maqalnay waa soo baxnay markii aan CID mid nasiib darro waxaan aragnay dad ka socda dawladda oo dhahayo annagoo oo mariixaana ma damaanad nolol kugu diida damaanadu waa idinku yartaha la yiri waxa la taagan yahay CID waxa la taagan yahay barxadda CID ya la taagan yahay meesha gudaha markii la sii galo ka soo horjeedka xafiiska dambi baaraha iyo ka soo horjeedka xafiiska mataqaana taliyaha CID meesha u dhaxayso oo gudaha oo la galo iyadoo la taagan yahay dadkuna 100 ka badan yahay ama uu ka sii badan yahay xataa 100 annagoo waxa la yiri waa idinku yartaa damaanadu saddexaatiin annaga oo mariixaan oo reer rebela miya damaanadu nagu yartahay leey waa nasiib darro aadan ugu xunna arintaas waxaan leenahay dadka madaxda oo dalka xukuma inay wax ku ogyihiin ma filayno raalina kama ah laakiinse waa nasiib darro aad iyo aad waxa haddana nasiib darro kala dadkii dambiga lagu soo qabtay oo meesha la keenay qaar kamida arintaas markaan hadalkaas maqalnay kadib la diiyay shalay la diiyay laba haweenaa la sii deeyay nin xeer ilaalinta ka socda oo dhahayo maaragtay anaa saana oo maaragtay adigu kulli baawr sheeganaya deeyay saa loo deeyna maxkamad ma la geeyay ma waxa la yiri dadkan dambi lagu ma haysto dadka markii eed la soo eedeeyo oo CID ay keento oo la baaro markii ay dambi lahaa waayaan maxkamadda in la tago laga hor cadeeyo qofkan dambi male maxkamaddu ay sii deyso meeshii laga rabay hadalkii meesha ka yeerayay oo aan CID ku dhaxaragnay oo indhaheena ahay ummadda ilaahayna arkaysay lanaan qarihayn hadalkaas iyo deesmadii dadkii waa isku mid waxaan isleenahay waa is aadan yihiin waxa kale oo intaas raacaysa kuwa kale ee dambo dada u gulfinayo oo leh wala sii deyna wallaahi been ma taliyaha mar ay noo suurto gashay aan meelo kala wacan oo dad kala wacan ilaa anagu dadka dalka oo muwaadiniin aan nahay markaan dad wacanay oo madaxu noo yimid oo meesha yimideen oo saanaan ugu dhacda aan dhahnay oo inala kulan siiyeen taliyaha CID iyo xildhibaanada qaranka kamida ay ugu maqlaayo oo eegi taagan yihiin waxaan dhagahayga ku maqlay dadka meesha ku jira waa dadkii dambiga geystay afkiisoo ku yiri marqaatii lahayd xildhibaanaa joogay nagaa joognay taliska meesha jooga marka dadkii ayaga ahayo falka geesta waxaa naga maqan nin hebel aan ka rabno qolka falku ka dhacay ee shanaad furihiisa ninkii haayay ayaa naga maqan ayaa qaybaha dambi baaristu ka hor cadeynayeen taliyaha CID ayadoo taasu jirto haddana indhaheenna waxaa ahay oo marqaatiyoon u soo joognay in qaar kamid ah dadkii la diiyay maxkamaduna aysan deyn waxaan codsanaynaa madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose waa nasiib darro dhibka dhacay annaga kaliya nuguma dhicin ummadda Soomaaliyeed oo ku dhacay wallaahi thuma wallaahi dadka haddaad ama xildhibaan ahaw amba madaxweyne ahaw amba wasiir ahaw wallaahi gabdhaha taadu waa untaada gabdhaha Soomaaliyeed ee dalka ku nool waxa annaga teena ku dhacay wallaahi idana waa ku dhacayaan horena waa ugu dhaceen haddana waa ku dhacayaan waxaa loo baahan yahay waxaan codsanaynaa
dalka howlahaas gobolka banaadir madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo xataa golo wasiirood ku meel gaar haddii ay jiraan xildhibaanada aqalka sare ee aqalka hoose waxaan ka codsanaynaa arrinta ayada arrin waxa waaye musuq maasuqa waa arrin aad u liidata wax cadeymaho laga qora ma jiro kontaktigii taleefanadii dadkii la xiriira waa yaalaan taleefankii ay haayaan hoteelka oo dadku ay gelayaan oo lagu dilaana waxa waaye kaamiruu leeyahay wuxuu leeyahay maamuluu leeyahay wax kastuu leeyahay meeshuna iska gal maaha ay dhikaara la isaga baahan yahay waa taqaaniin walaalayaal meeshaas cadaalad darraan nagula dhacday qaab darraan aragnaa waxaan aragnaa inay waxaan aad iyo aad uga calool madownahay kuwa hadda dhinta lama rabayo kuwa kaloo nool oo soomaaliyeed sidaan ayaa u taalla waxaana loo baahan yahay in laga hortago waxaan codsanaynaa marka annaga guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda soomaaliyeed in allaaleeya intii shaqo ku leh iyo inta xil haysa waxaan leenahay arrintaas ha noo gurmadeen ummadda soomaaliyeed hau gurmadeen gabadheenna keliya maahan ummadda soomaaliyeed hau gurmad waddanka cadaalad kama jirto anigaan hadda idinla hadlaayo cabdibilaa wuxuu ugu dardaray halkaas lagu iga jebiyey waa dacwada markaan dacwooday waxaan tegey maxkamadda ciidamada qalabka sida ninkii oo magaciisa oo saddexan maalinta markhaatiyaalkii heer ururka uu ka tirsan yahay wixii dhan oo dhanaan geeyey waxaan geeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida markaan geeyey 3 iyo 4 jeer aan tuwal baan ku laabtay waxaa la yidhi ninkaas waa maaragta lama soo qaban karo war nin ciidana oo ciidamada militariga ka tirsan oo xarunta gaashaandhigga jooga amba meeshaas xeradan oo maaragta magaciisa jooga hadduu ugu xaggan bar afgooyi jooga haddii kale inta meel gobolo loo dir imaanayo meesha imaanayo aan la soo qaban karin maxaa waaye loo soo qaban waayo maxay tahay waa tiyo kale cadaalad darran arkaynaa waddanka war waa wareeyaan leenahay waxaan leenahay marka mar labaad anoo ku noqonaya cadaalad ha la helo waddanka cadaalad ha loo raadiyo waxaan leenahay annaga cadaalad xumaa nagu dhacday dhibkaasaa nahayo horow noogu dhacay haddow nahayaa waxaan leenahay marka dawladda waxaan ka codsanaynaa annaga madaxweynaha dadka waxaan leenahay karaama darray ku rideen dadka oo inta sheegtay weliba CID gudaheeda ku leh waxaan leenahay cadaaladda waddanka ra'iisul wasaare kama jiro ku meel gaar ma ogiyo waddankuna aad iyo aad madaxweyne waxaan ku leenahay kii hore baxay dadka asiga heybtiisa ugu daray dadka godadka ku ridayay ee lahay mariixana yeelay la dhahay arrintaas waxaan leenahay arrintaas inaad ka dhiidhisid oo soo dhex gashid oo arrinteena wax ka qabatid dalka dana ugu jirta adiga xataa laftirkaaga karaamahaaga waxbay u geysanayaan shaqo kuma lihid waxna kama ogid waxaan ku leenahay noo cadaalad fal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay walaasha xamdi maxamed faarax caroone walaalkeed ayaan nahay waxaan kaloo nahay nabadoonkeeda waa maaragtay aadaan waxaanu nahay waxa dhacay dhacdada jimcadii dhacday ee ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waaberi wax aad looga xumaado soomaali oo dhan ay ka xumaata ayaa ka dhacay meesha waana ka xunnahay dhibaatada dhacday aadaan ugu xunnahay marka wax hadda intii aan maaragtay mas-uul ahay dhacayna intii aan maqlahay hadda muqdisho kaan maqlayana maaragtay waa mid ugu dareedo aan maqla ama aan arko abtiga ayaa wax badan ka hadlay kheyr allaha siiyo waxaan marka aan maaragtay aan ku darayaa cadaaladii ayaan ka hadalnay waxaan rabnaa in cadaalad helno waxaan rabnaa inaan helno dadkii ku lug lahay dhagartaasi gabadhaasi maaragtay xamdiya loo geystay wixii dhiman la soo helo marka aad waxaan wuxuu nasiib darra waxa ah dadkii loo xiray hadda u xiraay kiiskaasi ay ku eedeysnaayeen xamdi maxamed faarax in ayagii nagula dagaalamo oo ay nagula dagaalamaan mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ay yidhaahdaan dadkaani la baari maayo waan hor istaagaynaa ayagoo sheeganaya markaasi jah iyo maaragtay masab dowladda ka tirsan marka waa nasiib darro waxaan maaragtay xaq u lahayn in lasoo helo dadkii kale ee ku lugta lahay maaragtay baalka dhagartaas wax ka geystay la raadiyo la keeno cadaaladda la marsiiyo taasaan rabnay marka hadda waxaa maaragtay dagaalka weyn ay maaragtay dadka ku jira ay ayaa ah marka in dadkii la hayay ee cadaaladii la marsiin rabay in la yidhahda la sii daayo marka taa cagsigeeda waxaa waaye dadka ha la isku daayo annaga nabadoonaan nahay waxaan ka shaqaynaa waddanka inuu maaragtay xasiloonidiisa maaragtay aan ka shaqaynaa dhibaatada dhacdo iyo dadka dhaco iyo waxaasoo dhan dowladda ku xigaan nahay oo dadka maaragtay dhibaatada ku dhacdo xalliya geeriyaa imaada dhaawac baa yimaada waxaasoo dhan waa xallinaa waxaan ku xallinaa si wanaagsan oo walaaltinimo oo garaawshiyaal aan ku xallinaa qofkii walaalkaa wax kaa gaaraan si walaaltinimo oo garaawshiyo leh ayaan maaragtay ku dadaalnaa inaan maaragtay maadaama annaga magacaynaba uu yahay nabadoonno uu yahay nabad inaan ka shaqayna ayaan ku qasbanna marka
hadda marka waxa nagu dhacaya marka maahan marka wax hadda dawladnimana maahan dadnimana maahan waxa dadka loo dul qaadan karana maahan xaqiiqatan waa wax sax ah dadka Soomaaliya oo dhan way ka cariisayeen waxaan warkay ku soo gaabinayaa inaan cadaalad helno oo dawladda ay ka shaqeyso inaan dadka la isku daynin dadku xayawaan kama duwana waxa kala celiya sharciga kala celiya sharci dadka hadii ay helaan waa kala badbaadayaan hadii sharci darro ay imaadana waxa ogaadaan mas'uuliyadda meeshaas ka imaada inay dawladda leedahay dawladda ayaa iskala wixii meesha ka yimaado qofkii walaashii la dilay ee la farxumeeyay ee lix dabaq laga soo tuuray ee la yiri ninkii dhibkaas geystay waa sii daynaynaa asagoo baaris marin waa cadaalad darro waa dadka la isku daayo marka ha noola sheega marka madaxweynaha asaga dadka ugu sarreeya ha yiraahdo reerkayga ayaa maaragtay waxay rabaan suubinayaan adinkana ku ogaadaan yiraahdaan annaga naba doonanahay afkeena hadda ka sheegamayno colaad ka sheegamayno laakiin waxaan ka rabnaa madaxweynaha afkiisina annaga uu ka sheega haddii kale wax ka qabto waa ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh